waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Fiyaad iyo Fagaaraha oo toddobaadkiiba mar aad ka daawan doontaan bogeygan Cabdifataax Yuusuf Beereed. barnaamijkeena galabta waxaa marti noogu ah abwaan Maxamed Deeq Cali Xasan. abwaanku wuxuu ka mid yahay dhalinyarada da'da yar ee haddana hibada leh. abwaan Maxamed Deeq oo ku soo dhaweynaya markaa Cabdifataax waa dhawahay saaxiibkii Cabdifataax Yuusuf Beereed waa ku dhawahay barnaamijka Fiyaad Fagaaraha si fiican oo soo dhaweynaya maanta waxaan halkaan rabaa inaan ka soo jeedo gabayo anigu aan soo diyaariyay oo waa u galigi doonaa abwaan. waxaan rabaa marka hore su'aasheeda ugu horreeyay inaan ku weydiiyo oo ah abwaan Maxamed Deeq waa kuma bal dadka isbar horta intaanaan gabayada u gudbin. abwaan Maxamed Deeq Cali Xasan horta waa nin dhalinyaro ah ka tirsan dhalinyarta degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. horta aniga dhalash ahaanteed markaan ka soo bilaabay waxaan ku dhashay degmada Garjir meel u dhow oo hadda magacaas lahayn baadiyaha degmada Garjir ee gobolka Hiiraan kuna barbaaray degmada tan Guraceel ee gobolka Galgaduud. waxna ka bartay haddana waxbarashadu sii socoto hammi fiican aan ka leeyahay. marka galabta waxaan nasiib u yeeshay inaan ka soo muuqdo barnaamijka Fiyaad Fagaaraha. marka insha Allah aad aan ugu faraxsanahay in xaggan ka soo muuqdo galabta. abwaan da'yaraha tahay waxaad ii sheegtay in gabayaal kala duwan aad tirisay oo noocyo kala duwan ku saabsan. goormaad bilowday curinta gabayada? curinta gabayada waxaan bilaabay aad uma dheera sanadan dhexdeedaan bilaabay. sanadii hore 2021 dagaalada u dhaxeeyay sunnadii dawladda afaafkeedii hore. marka galabta ka horna maana tirinin oo way diyaarsanaayeen oo wax aan hadda soo bandhigay galabta ka horna ma leh oo hibadeeda aan soo bandhigay bulshada ma jiraan oo galabta ka hor. galabtan waxaan rajeynayaa inaan ka mid noqdo abwaaniinta degmada Guraceel insha Allah. abwaan bal gabayga koowaad ee aad tirisay ama aad nala wadaagi lahayd muxuu ku saabsan yahay? bal intaada gabayga u gudagelin bal hordhac nala wadaag marka hore wuxuu ku saabsan yahay wuxuu xambaarsan yahay. gabayga aan horta marka koowaad tiri wuxuu ahaa gabayga ciilsiyaha oo aan aniga laftigeyga aan iska soo bilaabay ciilsinimada oo markii hore aniga waxaan isku arkay ciilsinimada xaggeeda isaga arkay aan ka tiri kana noqday ciilsinimadii awna aan rabin xitaa marka hore inaan noqdo laakiin aniga wax ugu dhacay nin dhalinyaro ah hortaas magaalada jooga ahay magaalada aan ka soo gatay dhar surwaala nin yar oo saaxiibkan u geysto harqanley markaas aan dhahay inuu surwaalkan uga weynahay ii qabo waa ii qabtay waa ka baatay lacagta u tuuray ii qabtay aad igu dhajiyay markii meesha xitaa la rabay inuu surwaalkii markuu qabto oo ka leexdo intii uu qabto uu jaray hay ugu dhajiyana waxaan dhahay harqanka qabto dhaa saaxiib iska dul qaado ku qaata surwaalka waa isoo watay surwaalkan oo sidoo wataa ma suuragal oo asasjo waa fadhiisan waay markii surwaalka lagu xagalay ka qabanaa oo aan sajo karin oo wixii xasaarada iska dhaqi karin madkaada iska dhaqi karin oo saasna waxba kaaga ansaxmeen marka gabayga soo dhacay marka waxa uu la dhalshay in wax ciilsiyaha jooga magaalada ama surwaalaas wata inay waxba ka ansaxmeen salaada ama sajo ka ansaxmeen gabayga saas ugu dhashay marka mid kale ahayd foodan way ahayd midaan ka tiri aydan fooda iyo dhalinyarta fooda u jaranta aydan labadaba ku jiraan gabayga oo dharka isku dhajiray iyo tudacdiisa ka mid oo food hadda taan wax nacfiyo laga keenaa ma leh ina dambi adigu kaaga soo kordha maahan. ana hadda magaca taa ugu baxay inta jarta haddana iska dhaaf oo magaca inta liigu bixiyo dugsi aan isla dhiga jirnay dhalinyaro dugsi inta kaliya dugsi ka soo jartay haddana liigu bixiyo magaca xitaa hadda ilaa hadda liigu jiro magaalada qaar marka aan iska dhaafay saas dama waalidka xitaa caqabad baa kala kulmay oo inta fooda jarta xitaa waalidka caqabad baa kala kulmay asaga dhaafay darteed haddana waa ii jidaa tinteedana waa ii sideysanta waxa iga dhimaqan male midda kale gabayga tuuciis kamid ah waxa way tahriibka dhalinyarta tahriibeysa oo dalkooda ka baxaysa waa isla gabayga tuuciis kamid ah dhalinyarta sida inta badan wax u badan yihiin dhalinyaro oo nolosha ka dhacay oo tahriiba oo ciilsiya oo inta soo noqdo wax celiil la waayay ama wax nolosha ka dhacay tahriibi oo intooda badan ciilsiya ah intaas oo gabayga ka kooban yahay. bal tuuciyadiisa hadda nala wadaagto. tuuciyada ugu horeeya waxa waaye
gabayga wuxuu oranayaa cayilsiyo cabsi ma jirta miyaa caasideen cadalkii oo adinka calalada isku dhajiyay banaydeen cawradiinii وادينك جساء وحرت عينك قالت عبتيني بنانك تميت عبتيني بنانك تميت هدان ربي لقى عبسين سف عن ما تسكر التوتان راعدان سنة رسولك عليه الصلاة والسلام تجعلي سنت ساكمده إن كستو سيب بدين هديتان واي هاي مركا قبيادة تريدو كله محاكمة أيها قبيادة كله أن تريورتا ميدو حاكمة وحاكمة كوان مشاهدين أو دفكن وها جحسد الشباب حاكمة oo gabay aan u tiriyay kan mid kale gabay aan u tiriyay waxa waaye gabdhaha sacday waay kan qayb kamid dilka iyo dhacayo qaraxaas oo dadka muslimiinta lagu hayo una aaminsan yihiin inay gaala leynayaan goorma samaysay gabaygaas qisadiisa asna waxaan ugu dhashay hadaan bilo ka hor dhowr bilood ka hor ugu dhashay waxaana sameeyay bishii bishii sagaalaad 12 sameeyay oo aad aan u dheereen oo kala talo sanada aan sameeyay waxaan ugu dhaliyay qaraxa iyo dadkan la dilaa oo muslimiinta ay kana la dhacayo ama dhalinyarta la leenayo oo dadka muslimiinta ay kana u aaminsan yihiin inay leenayaan gaalo bidacyo kamid ah in la wadaago murtiga gaarsiin baa la aad ku dabar jarti geeraarka murtida anoo garka sii haya abid anoo gaal shisheeyo khawaarij midna kaga gambanaynin runta rabba kugu jecel raalina kaaga inta kamid oo sii soconay inta soo gabay ka sii soconay argixisada halkaas ka sii bilaabanay horta gabdho badan hadda magaalada joogan waa jiraan oo iscadeeyay am jirkooda bedelay oo midabkooda alla u abuuray aan ku kalsooneen oo si bedelay jirkooda bedelay ama jirkooda arkaysa dareemaysa xitaa marka qaar inuu soo wajigooda fiicnaan marka iscadeen midabkooda hore isla midabkooda hore u fiicnaa markii daawo mariyaan ay jirkooda smash ka filanayeen cadaanka oo jirkooda si kale isku bedelo kii horena oo ka bido oo san sidiisi ku sii joogeen kan ay isku rabeen oo gaarin oo si kale oo noqdo marka asagana gabayaan ka diyaariyay oo gabdhaha magaalada jooga aan qaarkood ku arkay wajigooda inay isbedeleen ama iscadeeyeen aan gabay ka diyaariyay wuxuu oranayaa gabaygaasna wuxuu oranayaa gabdhaha iscadeeyas raba gaar inaan wax ugu sheego dheeman wajigiinniyo waadinka dhalaaliyo dibnihiinniyi dhagartiiba iska dhigteen dheh nuuran iyo yeelan maysaan dhibkii linka soo maray dhowri maysaan waaridkiinnii kula kaftamo magaca Timoweyn muxuu ku yimid magaca Timoweyn horta hadda oo baxaniga bistinta waxay jaranta hadda 10 bilood 12 bilood ay jaranta sanadkan la socda horena liiguma bixin marka tinta sii deystaa la bixiyay naanaysti saxda aan hadda waa nabadoonka Timoweyn waxa ugu baxda tinta aan sii deysta maana awal lima dhigin laakiin naanaysti saxda waa nabadoonka farinta amarna waxay tahay dhalinyarta hamiga leh oo aan wali soo bandhigin hibadooda iyo hamigooda waxa la inay ka dhidiyaan waxa ay gabayada ka tiriyaan inay hamigooda iyo hibadooda soo saaraan aysan ku dhowdhooman meelaha horena u socdaan hamigoodana gaaraan taas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal iyo saaxiibayaal barnaamijka Fiyaad ee Fagaaraha oo galabta martin ugu ahaa abwaan Maxamed Deeq Timoweyn abwaan markale ayaan ku mahad celinayaa